qodobada aan ku soo qaadanayno wararka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda waxaa ka mid ah ciidamada Hindiya oo soo badbaadiyay kalluumaysato ajaaniba oo ay afduubteen burcadbadeed Soomaaliya. Hogaamiyaha burcadda iyo gaangiska qabsatay dalka Haiti oo sheegay inay hubka dhigayaan haddii loo sameeyo waxa ay rabaan. milyaneer Maraykana oo maxbuus noqday wuxuuna xabsiga ku jiri doonaa muddo 25 sano ah iyo qodobo kale. aan ku bilaabe ciidanka badda dalka Hindiya ayaa ku dhawaaqay inay isku soo dhiibeen koox burcadbadeed Soomaaliya oo afduub u haystay doon kalluumaysi oo laga leeyahay Iiraan oo lagu magacaabo Alkambar. doonta afduubka loo haystay waxaa la socday 23 shaqaale oo u dhashay dalka Pakistan kuwaasoo hadda la sheegay in dhammaantood ay bad qabaan. howlgalka ay kooxdan isugu soo dhiibtay markabka INS Sumeda ee ciidanka badda Hindiya ayaa socday muddo 12 saacadood meel qiyaastii koonfur ka xigta jasiiradda Soghadra ee dalka Yemen. bal markana aynu eegno farcelinta iyo wararka ay soo saareen ciidamada badda Hindiya iyo arrimaha la xiriira dhacdadan. sida lagu xusay qoraal ay ciidamada badda Hindiya soo dhigeen barta X ayaa afhayeenka ciidamada badda Hindiya wuxuu ku sheegay inay ka war heleen dhacdadan oo doon kalluumaysi oo laga leeyahay Iiraan laguna magacaabo Alkambar ay u gacan gashay burcadbadeed Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 28 bishan. arrintan ayaa ka dhacday meel 90 mayl koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda Soghadra ee dalka Yemen. afhayeenka ciidamada Hindiya oo arrintan ka hadlaya waxa uu yiri sidan: 2 markab oo Hindiya leedahay iyo ciidanka ku sugan badda Carabta ee halkaas u jooga howlaha ammaanka badda ayaa gacan siiyey markabka la afduubtay oo la sheegay inay soo koreen 9 burcadbadeed Soomaaliya oo hubaysan. markabka la afduubtay ee MV Kambar ayaa loo gurmaday Jimcihii Maaj 29 2024 howlgal ay qaadeen ciidamada badda Hindiya oo ay ku soo furteen markabkaas iyo ciddii saaraydba. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka badda Hindiya ay ka go'an tahay hubinta amniga badda ee gobolka iyo badqabka badmareennada iyadoo aan loo eegayn halka ay ka soo jeedaan. toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda gaashaandhigga Hindiya ayaa sheegtay in ciidamada badda Hindiya ay ka falceliyeen saamaynta dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku yeeshay marinka badda gobolka iyagoo kordhinaya howlaha lagu sugayo amniga badda. tan iyo bartamihii Diseembar ee sanadkii hore bishan Maaj 23 ayaa 100 maalmood ay u buuxsantay howlaha amni ee ciidanka badda Hindiya ay ka wadaan xeebaha u dhow Soomaaliya. ciidamada ayaa muddadaas ka jawaabay sida la sheegay ilaa 18 dhacdo oo xeebaha laga soo sheegay. wasaaradda gaashaandhigga Hindiya ayaa sheegtay in ciidamadu ay howlgal amni oo xeebaha ka fuliyeen 3 meelood oo kala ah gacanka cadmeed iyo aagaga u dhow badda Carbeed iyo xeebta koonfureed ee Soomaaliya. tan iyo bishii Diseembar ilaa 5,000 oo ciidan ah ayaa la geeyey aaggaas iyo sidoo kale maraakiib iyo diyaarado disha kala socda. wasaaradda gaashaandhigga Hindiya ayaa intaas ku daraysa intii ay socdeen howlgalladan inay soo badbaadiyeen shaqaale badan iyo maraakiib iyo doonyo. ciidamada badda Hindiya ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa dhowaan badbaadiyey 17 shaqaale oo saarnaa markabkii MV Ruyen oo muddo 3 bilood gacanta ugu jiray burcadbadeedda Soomaalida sida ay baahiyeen ciidamada badda Hindiya. howlgal qaatay in ka badan 4 saacadood oo gacanka hadala waxaa fuliyey markabka dagaalka ee la yiraahdo INS Subara oo ay caawinayeen diyaaradaha qumaatiga u kacaya kuwa ilaalada ee aan duuliyaha lahayn. sida barteeda X ay ku sheegeen ciidamada badda Hindiya tirada burcadbadeedda ay ciidamada Hindiya ku qabteen howlgalkaas ayay ku sheegeen inay dhan yihiin 35 nin. xilliga howlgalku dhacayay markabka ayaa ku sugnaa masaafo 1400 nautical miles meel u jirta
xeebta badweynta Indiya. sidoo kale ciidamada ayaa dabayaaqadii bishii January soo badbaadiyay 2 markab oo ay afduubteen burcadbadeed Soomaaliya. biyaha iyo xeebaha Soomaaliya ayaa hore u ahaa meel ay ku badan yihiin burcadbadeedu, balse waxay dhammaan joogsadeen kadib markii ciidamada caalamiga ay kordhiyeen roondada ay halkaasi ka sameynayeen. Hindiya ayaa horey uga gacan geysatay ilaalinta aagga biyaha Soomaaliya tan iyo sanadii 2008. qaar badan oo ka mid ah ciidamada caalamiga ee qaybta ka ah howlgalka ilaalinta biyaha Soomaaliya ayaa hadda u ruqaansaday ama u guuray dhanka badda cas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP, halkaasoo kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay weeraro ku qaadaan maraakiibta ganacsi ee halkaasi maraya. khubarada ayaa hadda ka cabsi qaba in arrintaasi ay ka faa'iidaystaan burcadbadeedda Soomaaliyeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. rabshado ay kooxo gaangisa muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen dalka Haiti ayaa xog hadda soo baxday. waxa ay sheegayaan intii rabshaduhu ay dalkaasi ka socdeen inay burcaddaasi dalkaasi ku dileen in ka badan 1,500 oo qof sanadkan, oo ay ku jiraan carruur badan, halka daraasiin dada la gowracay, qaar kale dhagxaan lagu dilay, qaarna nolosha lagu gubay. dagaalada gaangiska ee Haiti ayaa sii xoogaysay toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo kooxaha sida weyn u hubaysan ay soo bandhigeen mowjado weerara ah oo ay ku jiraan weeraro lagu qaaday saldhigyada booliska iyo garoomada diyaaradaha caalamiga ee dalka Haiti. ra'iisul wasaarihii dalkaas Ariel Henry ayaa isna ku dhawaaqay inuu iscasilay 11 Maarso kadib markii gaangisku ay bilo wareegeen dalka Haiti. qaramada midoobay waxay xaaladan cakiran ku tilmaantay masiibo. mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxaha burcadda ee dalkaasi ugu awoodda badan waa Haiti ayaa sheegay inay ka fiirsan doonaan inay hubka dhigayaan haddii kooxaha hubaysan loo ogolaado inay ka qayb qaataan wadahadallada lagu soo dhisayo dowlad cusub oo uu yeeshay dalka Haiti. kooxo uu hogaamiyo gaangiska weyn ee la yidhaahdo Jimmy Kaiser, oo sidoo kale loo yaqaano Basque, ayaa gacanta ku haya inta badan caasimadda Port-au-Prince ee dalka Haiti. waxa uu saadaaliyey in rabshadaha Haiti qabsaday toddobaadyadii la soo dhaafay ay sii kordhi karaan maalmaha soo socda haddii aan loo yeelin sida ay rabaan. ninkan burcadka ayaa waxa uu sheegay Sky News in kooxdoodu ay xal diyaar u tahay haddii dib u dhiska dalka iyo dowlad dhisida dalka Haiti laga qaybgelinayo burcadda, waana arrin aan la garanayn sida burcad looga qaybgelin karo dhisme dal iyo dowladdiis. Haiti oo ah waddan sabool ah oo ku yaala Caribbean-ka oo ay ku nool yihiin in ka badan 11 milyan oo qof, ayaa ah bilaa ra'iisul wasaare tan iyo 12 Maarso. waddanka ayaanay ka shaqaynayn wax dowlad oo xooggan. Ariel Henry, ra'iisul wasaarihii Haiti, ayaa xilka iska casilay kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen kooxo hubaysan, isagoo ka soo laabanayay dalka Kenya, halkaasoo uu ku soo saxeexay in ciidamo nabad ilaalina oo military dalka Haiti la keeno si sharciga iyo kala dambeynta dib loogu soo celiyo. burcaddu waxay ka faa'iidaysteen dowlad la'aanta dalkaas, waxayna isku ballaariyeen gacan ku haynta dalka, taasoo Haiti ka dhigtay waddan aanu sharci ka jirin oo gaangisku ay ku awood badan yihiin. golo madaxnimo oo ku meel gaara oo mas'uul ka noqon doona xulashada ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti ayaa soo saaray bayaankiisii ugu horreeyey, waxayna ballan qaadeen in dib loo soo celinayo nidaamkii dawliga ahaa iyo dimuqraadiyaddii Haiti. waxaan go'aansanay inaan yarayno dhibaatada dadka Haiti oo ku xayiran waqti dheer oo u dhexeeya maamul xumo, rabshado wejiyo badan leh iyo tixgelin la'aanta aragtidooda iyo baahiyahooda, ayuu goluhu ku sheegay bayaan uu soo saaray. xubnaha golaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in Haiti dib loogu soo celiyo dariiqii sharcinimada dimuqraadiga ah iyo xasiloonidii iyo sharafta. warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayay ku diiwaan gelisay 4,451 dilal sanadkii hore iyo 1,554 ilaa iyo bishii Maarso 22 ee sanadkan,
qaramada midoobey waxay sidoo kale sheegtay in dalalka qaar ay ka dhaceen guryaha dadka deegaanka iyadoo ay sabab u tahay dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay taageerayeen booliiska Haiti ama kooxo kale oo iska soo horjeeda dadka ay laayeen. dhinaca kalena Sam Bankman-Fried oo lagu naanayso boqorka lacagta cryptocurrency ayaa lagu helay dembi ah inuu xaday balaayiin dollar oo uu ka dhacay macaamiishiisa sarifka cryptocurrency ee shirkadiisa la yiraahdo FTX. maxkamad ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa ku xukuntay 25 sano oo xariga, taasoo dacwad ogayaashu ay ku tilmaameen mid ka mid ah khiyaamooyinkii maaliyadeed ee ugu weynaa ee ka dhacay dalka Mareykanka. sidoo kale waxaa lagu qeexay burburkii ugu weynaa ee maaliyadeed ee Silicon Valley, kaas oo ay la kulmeen dad caan ah. bishii November 7, 2022 ayuu ninka la yiraahdo Bankman-Fried la kulmay bilowgii burburka shirkadiisa. horaantii maalintaas ayaa baraha bulshada lagu muujiyay walaaca ku gadaaman dhaqaalaha Bankman ee sarifka cryptocurrency, taasoo keentay in macaamiishu ay balaayiin dollar kala baxaan shirkadiisa. 5 usbuuc kadib, dacwad ogayaasha Manhattan waxay ku soo ogeen Bankman-Fried dambiyo maaliyadeed oo dhowr oo ay ka mid yihiin khiyaanada Silicon Valley, khiyaalo dhinaca amniga, iyo lacaga si sharci darro ah loo maamulay. Bankman-Fried ayaa lagu eedeeyay inuu lunsaday balaayiin dollar oo maalgelineed oo ay leeyihiin macaamiisha shirkadiisa, isagoo ku xisaabtamayay suurtagalnimada inaan weligiis dacwad lagu soo oogi doonin. dadka maanta maxkamadda tagay oo ku markhaati furay Bankman-Fried waxaa ka mid ah saaxiibadiisii hore Caroline Howley, taasoo xitaa kala shaqayn jiray shirkadiisa FTX.